wanaagsan dhamaantiin aad iyo aad baan salaamaya caawa live-ka waxa uu soo galnayna qodobyo badan ka hadalno qodobyadaas oo kala ah kow xariga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaaritaanka gobolka Banaadir ee tartanka maamul goboleedka iyo sheekada dabac sare haddana waxaan idin soo dhaweynayaa Cabdiqaadir Booska asiga niga qoran doona يعني ما سنتها ولا شيء قالي وعطها سياسيا يعني تسيكوي قف مع كم صوت هذه وان مينت كده من بلا ما دونا هدو ايه بسامحه اوه ماي جاد برتنا كودنا رال هذا يا ريان شكل دبع عصري مع كم ساعة تعبت دبع عصر يا لو قوانين واضي وداد هاي مرمر وداد مرمر وداد كاوريري كرتا هاي انت وداد واشيقيني مرنا وابهين oo kale marna waadeerkeen oo kale maante alaga qalay ma leedahay يا لو قوانين okay walaalka dibka jirado waa la daweeyaa maanta asiga wadankii joogo inta quraan la saar lahaa la daaweyn lahaa ya in xarig loogu daro dilitaan wala fiican yahay anigu fasax rihaane barnaamijkan caawa thank you very much wala shay sida ugu qayb qaadata barnaamijkayga caawa stuudiyaha badbaado ayaan haatan ku nahay ready thank you very much at all وعير إيوت أيها كهارة هستنا يقدم قدركيه وهستنا كبحث برو شنب قلوا قف أيها درب الديار عاوة وعن ربا برنامج خاص هنا عاوة كدودنا هدو إيه بسامحو مركا كوري مركا لبات حرق عبد الرحمن عبد الشكور أيان ربا إنا اللبا قضب كإراهضو برنامج كا وانكو عسومي دونا داوضياش شرفت لي مركا لي مركا وحايد لي هاي انتي هبين أتهاي انتي قلب أتهاي انتي مغرب أتهاي انتي صبح أتهاي انتي مالني إيه هبين waxaan leeyahay si sharaf leh thank you very much waan salaamaya waxaan leeyahay mar walba iyo meel walbana bogaadin ayaan idin soo marinaya qodobka dooda ee caawa barnaamijkan waxa ku furan doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur ilaa ay xalay aniga ma soo gelin live waxaan rabay mar walba inaan waxaan hubo qodobkii oo faahfaahsan sababta loo xiray maxaa ka dambeeyay yaa la xiray halku jooga intuu ku sugan yahay كان دبنيو مركلي waxaan leeyahay saaxiibayaal igara hada caawada jaajarka ku xirta xiriirisa meeshana bas meeshana isku xirta rafaad inta ii jidabo dabka iga dhacay marka qaybisadii aan ku xiray qaybisadii aan budboodiisano raali ahaada marda ma dhacay iga adkay marka waxaan leeyahay saaxiibayaal inta halkay wax marayaan ayaan rabaa inaan idin la gudoomo طبعا انت Soomaalinimada jacayl ay ku weyntaana waxaan leeyahay iyana meel walba joogtiin qodobkan ila wadaaga oo la wadaaga saaxiibadeen qaaliga ah marka waxaan leeyahay saaxiibayaal mar kalena caawa rafaadka iga heesta waxaad mar walba igaba ayaha raali aad marka adan toos u wadanayna barnaamijkiyaga telefonka gacanta ku qabsanaa waxay rafaadka marwaybo bisinko marka waxaan leeyahay meela saarta telefonka Cabdiraxmaan Cabdishakuur horto ma jirto qof oo wax ka galabsaday Cabdiraxmaan Cabdishakuurna wuxuu la mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed wuxuu la mid yahay qof walba oo damac kursi ku jiro wuxuuna ka duwan yahay qof walba oo raba calashaan in uu hub wax ku raadiyo ma aha nin hubeysan sidaan xogta ku haayo ilaaladiisuna waa kuwa ay dawladda Soomaaliyeed u sharciyeysay ilaaladiisu waa xadkii loogu talagalay ee qof siyaasi ilaalin lahaa ilaaladiisu waa kuwa ka nabad galaan shacabka jidadka maraayo sidoo kale ay liddi aan ku ahayn qaranka ilaaladiisuna waa kuwa dawladda Soomaaliya qayb ka ahaa marka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xarigiisa iyo si wax u dhaceen ayaan gudagelinaa horta marka hore waana ka doodaynaa abaaro 12 ama 5 saac habeenimo sida aad u taqaanaan ayaa waxa u soo galay nin la yiraahdo Saadiq John oo ah taliye ku xigeenka nisa ee gobolka Banaadir waxaana la leeyahay wuxuu wacay ilaaladiisa wuxuu yiri waxaan u baahanahay waa ilaaladiisa hadde si fiican ila socda waxaan u baahanahay madaxweynaha
صادق جون وتلي كحجين كنيسة قبل كبنادر أما تليها نسا قبل كبنادر يهاب أما كحجين كيس مهم إيه معها وكله وننهراب جفدي سواسنا مرة بينا شيء نكاس أيا صواعي وعود له وحنا أبا هنا مدحوينا أولاد جدي عبد الرحمن عبد الشكور بركم مدحوين اللي يدبع عبد الرحمن عبد الشكورنا وهبر قدر أدا نسا جامعة وأوجدا هبر قدر له يدا كانت هذا واني سليمان مركز أصيل جنا باشر عدد الدكتور ريح حاج سليمان مركز صادق جونا صوعي واسيد هذا واحد عينيو أنت كوجا هاي صادق جونا صوعي نكترسن إلى الله عبد الرحمن عبد الشكور وحده هاي وحنا أبا هنا مدحوينها أولاد جدي مدحوين عبد الرحمن عبد الشكور وها شخص اسكوس الشرحي دور الشدي فبراير كده على قرن دلك الصومالية أو كوجل اسم مدحوين عبد الله فرماجو مدحوينها ما رتها ما دام صادق جون لو ذكرنا ونسا أو مدحكي هاي ولا كفوري نكي كفوري البابك أيال وقبتي ضربة يقرب باتكيس ماشي كسوحي أيوك أقال بالي سيدا ورباهين تقار هذا يسوق بيان قاركود هذا نقار سوق بين دونان أنا هل كان إذا كل وذا جايو مركا حقتا مركا لهلا أنا وعلى الربا وح بين كفو أو رنقة إنا بلشة اللوذة ما دام بلشة نقول حريين وح عقيق إنا هل كان كل وذا مركا إلى الذي طبعا يركز كتر سنة هرتو ومير دبولم الحمد لله هذا وصاك عي مركي اللي دلي أيا فيري علشان قفك مركي لقفر البابك يركا كلي أيا أوجا إن صادق جون صوص اللي دلي لكن أنت كلام ما لا سعنين إن صادق جون يهين ما هي أمالين كلام مركي صاص ولو بلاودتك مركي ما هي أمالين كلام وهي أمالين كلام الشباب وادق على من ده بسوك يدبجاه أكل لجلد ده والله إلى الذي عبد الرحمن عبد الشكور أو قرب بالله من أي حبة الغفر ما هي أمالين كلام وحوم لكن شباب وين الدفاعات نفتو الدفاعنا يعني برتي على فري عبد الرحمن عبد الشكور باش عبر قدير أما هراب أما هوي وحنا ويسينا يا سؤاله عبد الرحمن عبد الشكور هدي الربح حتى سيستم كي نظام كونود مي هي هدي الربح حتى إن لحرو حبدا كتها العاو إسبتال إذن أيو كجرا هذا أن إله الله وأنا محبوس دعوان هرتو موح حبدو متقانا عبد الرحمن عبد الشكور قيبت الدم أقدع إيه قيبت هور أقدع إيه عبد الرحمن عبد الشكور داوع إيه عبد الرحمن عبد الشكور دل هرت رصاصته ما تقانو أدوك كده أنا قدر كان رصاصته ما تقانو قف كان داوع إيه قف كان دل هرت رصاصته ما تقان ديجي سوبر سلامي برادر كيجا سودو وادي صاحب هذا كله حبض ما تقان عبد الرحمن عبد الشكور هلا داوع أو هلا دلتونا ما قرنيس وداوع ماي لابد صدق قضب دستوري أيين الجبيين دولة الفدرال كالصومالية كو دستور كفدرال كالصومالية قضب كسجالي طبنات وحقيقة حقوق ذا مواد حقوق ذا جريها إن أنا لقيلي كرين يدو أن رخصت لقيه سن محكمة السرائق محكمة السرائق قرنك يدو أن لقيه سن لما قيلي كرهرت كو حقوق ذي هم كالجبيين oo guriga xaaskaaga joogto oo caruurtaada joogto oo ehelkaaga joogan oo qaraabadaada joogan inta ciidan soo galaan rasaas iska bilaabaan adigoo qaaban kuma kaxaysan karaan taas dastuurka cidda rabtay weydii horta waa qalad meel kale iyadoo la gaarin xabadan iyo dhiiga iyo rasaasta iyo dhaawaca iyo dhibaatada inta la gaarin waxaaba qalad ah in qof gurigiisa la iska soo weeraro ha noqdo DJ Subeer ha noqdo Cabdiqaadir Boos ha noqdo Farxi Kabeer ha noqdo Faarax Xaaji ha noqdo Ali Kul Al Jamaa cidda doonta noqdaan qof gurigiisa lama soo gali karo qodobka 19 ayaana qeexaya jawaarina waa weydiin kartiin wixii information dheeraad ah waa laga fiican yahay because wuxuu leeyahay qodobka 19 farqadiisa hebel marka qofkaas ayaa weydiin kartiin jawaari taas waa gooni عبد الرحمن رصاصة كده عادي ماشي قفك موادن كي ولالك أمريكا حبت كده عضو لجين لها إسبيتال كواحد ولا أرضها برقديج جورجيد نبت سجد وقلت كلوا وعلى الربيع حتى إن لو وضع السجود داوعة إسبيتال لجيا فيري دولتها أن جونا وسترينج دولتها أن أرير قلبتك حدي قف القاعدة أم الداعش أم الشباب السجود دت كلها يترين أما ميل حبت نقطة لوجت فطو مستي أما قصب واجب إذا يمد قرن كساري هاي السجود داوعة إسبيتالك أيا لجينيا ولا داوينا يا كدب أيا لا حساب تمايا لكن عبد الرحمن عبد الشكور أو أنا أرجع حسين أو نين مواد الصوماليات أيا حبت أنت لو قلت قارك الدم سنتا لقيت جوعي أيا الله وتكور الحبسي بحوي عبد الرحمن عبد الشكور إثيوبيان كتصاص لما يلا إسرائيلي حتى عبد الرحمن عبد الشكور وحلو قول رقم ده تاسوا باب مدك على قلب كمواد دستور كوحو ليه هاي مواد كصوماليات لما حري كرو يدو
aan lagu wargelin inform lagu sameynin warqad dacwo ah loo wadan oo la dhaho hebel maxkamadda ayaa ku baahan meeshaas ayaa maxkamaddu ku dacweyn kartaa xaala la marsiin karaa dastuur nidaam la marsiin karaa kadib ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ama qof kasto muwaadin Soomaaliyeed ah xaq u leeyahay hadii laga guul dareysto in la xiro hadii xabsi mudan yahay laakiin la iskama xiri karo dalaq juruq farmaajo madaxweyne adoo mahadsan shalay waxa inoo sheegtay inaad wax badan ka bedeli doontid nidaamkii hore Xasan Sheekh kii Sheekh Shariif iyo kii Cabdullaahi Yuusuf oo sida warku u dhigta aad dhahday waa nidaam fashilmay sidaas darteed maxaad kaga duwan tahay hadii shabaabku wax kasta dili karaan feeri hadii shabaabku sabab 700 ku dileen hadii ciidanka booliska inta isku keesiyeen 17 askari dileen hadii ay wali sidii dalka u joogaan dagaalamayaan adna qofka ku mucaarado gurigiisa aad ku dishay 6 askari isagina dhaawac aawadatay maxaad kaga duwan tahay anigu waa ku taageerayaa shacabka Soomaaliyeed diyaar ku leeyahay taageero laakiin waxa weydiinaynaa madaxweynaha Soomaaliya dabcan ma booga live kan ama isaga xogeyntiisa maxaad kaga duwan tahay dawladii aad taas rabaa inaan ogaado waxba badan kaga ma duwanid taas waa su'aal madaxweyne Farmaajo wuxuu hore uga dhawaajiyay in qofkii Soomaaliyeed ee qof dila la keeni doono maxkamadda ciidanka qalabka sida xalayna ciidanka nisa waxay dileen 6 qofood oo askartii Cabdiraxmaan Cabdishakuur 6 qofood ee la dilay maraba hadda ina qabiiladooda halkan ka sheego qabiil walba Soomaaliyeed iskugu jiraan waa ciidan dawladda federaalka ee Soomaaliya mana ahan markii ugu horeysay ee ciidan dawladda federaalku leedahay la laayo iyadoo loo sheeganayo shaati xasilin iyo shaati hebelo iyo shaati nabad sugid iyo waxaan looma baahna marka waxaan rabaa inaan idin sheego 6 qof horta moleesaga haraayo ee la dilay xalay ee waliba shacabka Soomaaliyeed kuwa idaawanayo iyo kuwa kalena ku dhaliilay sababta Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa nin nool alxamdulillah ilaahayna soo caafimaad ha siiyo degdeg waliba caafimaad degdeg u rajayna laakiin 6 qof ee la dilay miyaysan Soomaali ahayn maxaa ugu doodi laadin 6 qof oo la dilay kuwaas ka saxa waa ilaa hadda aniga maxaa uga dhigteen dad xaasha bido kale maxaa looga dhigaa dadka Cabdiraxmaan waa siyaasigeena waa siyaasi Soomaaliyeed waana isbedel doon ceeb ma aha laakiin kaas meel idin kiiskiisa meel noo dhig 6 qofood waa inaan ka gubana 6 qofood 6 qofood ee la dilo wallahi inaysan hal qabiil ahayn waa Soomaali weyn inta qabiil Soomaali ka kooban tahay 6 qofood ashan kala daga Baydhabo Kaaraan Gurceel Garowe waa 6 qofood oo magac Soomaalina la wadaaga waaye we have to talk inaan ka hadalno waa qasab 6 qofood dhiigooda meel cidlaayo ku dhicin taas ayaana Soomaalidu u sheegaya waxaan rabaa inaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur baabkiisa markaa ka baxo waxaan dhageystay nina ilmo adeernahay oo walaalkay ah oo marna saaxiibkay ah oo raba inaan halkan xumaan uusan iiga fahmin xildhibaan Cabdicasiis xildhibaan nin la dhaho oo saaxiibo aad u nahay laga yaabay inuu igu la dhaho de Cabdiqaadir Booso maxaa qaldan maxaa saas ii tiri kuma caynaayo oo nin walaalkay tahay nin garabkayga tahay nin Soomaaliyeed tahay ina isku qaaraanna waa tahay Cabdicasiis xildhibaanow shalay markii Xasan Sheekh uu joogay ilaa Ingiriiska wadan Yurub aad tagin ma leh ilaa Soomaaliya ilaa Afrika waxaad ka leeyahay Xasan waa fashil Xasan waa kana aniga maxaa islaam taqaana Cabdicasiis xildhibaan ad list hamigiisa hankiisa wuxuu gaarsiisan yahay heer ra'iisul wasaarenimo heer wasiirnimo heer madaxtinimo marka ma dhihi kari dhowr jeer aan isku dayay Xasan maxaa ka hadlayna dhaho waxa isdhaa haduu kugu jawaab kursigiisa u baahanahay miya laga xigaa lagama xiga de marka waxaan ba ogaaday Cabdicasiis xildhibaan hamigiisa iyo hankiisa inuu ahaa afayeenka wasaaradda amniga ayuu hamigiisa iyo hankiisa ahaaba ma dhaafsiisaneen intaas wallahi billahi hankiisa ma dhaafsiisaneen maanta wuxuu ku doodaa wasaaradda Cabdicasiis xildhibaan fiiriya wasaaradda amniga anigoo la taliyaha wasiirka amniga ahna afayeenka wasaaradda amniga markii waqti la akhriyo wuxuu dhahay cid kasta oo qaranka burburinayso cid kasta oo sidaan ah cid kasta oo war shalay Cabdicasiis xildhibaanow umula halahay umula ilaa dhawe dadka Soomaaliya 3,000 oo qof ayaa live noo fiirsanaysa oo marqaati noo aanay adeeg dad walaalanahay 3,000 oo qof oo marqaati noo ah been kaama sheegay hadaa been sheegan ayaga na kala bixinaye shalay adiga miyaadan oranaynin Xasan Sheekh waa fashilmay Cabdirashiid Cali Sharmaarka waa fashilmay wasaaradaha amniga oo odawaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo midii amniga goodax bare iyo dhammaan waa fashilmeen wada laga hayaa shalay xamar dhaxdeeda taas dhayse adiga hadhihin oo Salaad Cali Jeel hadhihin oo Tarsan hadhihin waligiin Xasan Sheekh miide handade
وليجين حسن شيخ ميدان دد وعين جرتين ما أنت عبد الرحمن عبد الشكور قف ما بعايه وليجين أنت عيتميسين وهذا وصاكوا إنك كليه أنتينا والله إن البيت شيء أما برجدر أهاو أما أبقى أهاو أنت قف والبق وحسن الشيخ شلي معارضكوا إهد إنه هو يديس برير وعاي آيات إنه عاي لور ريبت حسن الشيخ مجرن عبد الرشيد علي الشرماركة عاي لور ريبت مجرن وليجون محرن هوتيلada joogeen waa la og iyaga markii la shabaabka weeraro la difaacay bal eeg fiiriya waxa raba ani qabiil qofka ma difaacayo oo hadda xildhibaanaan mucaaradsanay siyaasadiis maanta dawladdu waxay maraysaa 2018 ayaa la galaya dhowr cisho kadib 10 cisho hadaysan badneen haddaad qabiil wax ku difaacdid waa hoogtay waad gablantay dib u dhacan ku jirtaa laakiin qofka wuxuu wax ku difaaci karaa ama wax ku qof ku eedeyn karaa hanaanka marka systemka loo shaqeynayo haduu kula qalday haduu kula saxsaya aniga farmaajo waa mucaaradsanaa waan ku sharxay kala sababta mucaaradsanaa farmaajo waxaan ku mucaaradsanaahay wax walba uu ku faanay cagsigooda iyo wixii la sameyn jiray ayuu sameeyay marka farmaajo hadda ay taageersan tahay waa taageeri kartaa kuguma haysto shakhs Soomaaliyeed taa marka waxaan rabaa farmaajo laftirkiisa shalay mucaarado xasan sheekh ku ah wuxuu doono sameyn jiray عبد العزيز حلبان هو عيتم جري صلاة على جل هو عيتم جري إلهي كومس مدي لي بقولان سياسيين هوية عيتم جرت دارود ما يقدر حصل شيء قف أو ويرري قف أو حري قف أو دلي معركتين سياسي معارضة على ولي ما مقش هذه قف كي هو بهست أحمد داعي وكلها عبد الوالو وكلها تكنيك يزوجي هستين ولا رد قال لك راكواس وأنا بدي دولتنا معه هو بنو واحد يستان لكن عبد الرحمن عبد الشكور نين أنتوا مضل قبصده شرر قبصده شعب اسكو كينو لا يرد فهم سيو وما حي جميسي وما حي ساش الشيء وما حي بلو أيال وصو ويري أوكي أنت السياسة ده واحد هاي إن لو جدو إن برشة كقرصن برشة عوض ما حكي قرصن سياسة ده واحد لو جد عبد الرحمن عبد الشكور والله وير جورجي سالك الهرت مدة كوساب صن لعك إن لقاه الجورجي صابين أنا جا حقت أيدي الشيء عوض إيجا قرا وأنا وجد دون تنقدال واحد العقل ده هو ناس سياسي جورج دكتور تمجرت فرماجين وقولين حس على غيره وقولين ولا إسلام وقولين قف هرت جورجي سالعك إيجا هرت مجوجو تاس إيجا قر مد الله بعد waxa siyaasadda qarsoon ku jira oo iga dhaxashaan cawada qodobka ugu muhiimsan iga hooda dawladda madaxweyne farmaajo waxa laga hayaa mooshinka dhan ah dawladda Soomaaliya wuxuuna marayaa cawada iga qora 99 tirada ku filan ee lagu ridi karo dawladana waa 93 ilaa 92 ilaa 93 ma hubo labadaas 92 ilaa 93 marka 99 ayaa la hayaa oo mooshin ah waxay aamineen in shakhsiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu yahay cid lacagta ku bixiso programkan iyadoo loo maray Dubai okay madaxweyne farmaajo adigii Fahad Yaasiin ma waxa idin keenay Kenya mise waxa idin keenay Ethiopia mise waxa idin keenay Qatar jawaabtu waa Qatar hadiiba aad leedihiin Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur wuxuu u shaqeeyaa dalka la yiraahdo Imaaraadka saqiirka gabadha Soomaaliyeed iyo saqiirka Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed intaba miyay moog yihiin in adiga oo maraya Fahad Yaasiin aad dhiil ka soo qaaday Qatar sidaasna madaxweyne ku noqotay oo Qatarna ay yihiin saaxiibka kugu dhow marka hadiiba dal islaameed xoolo inta laga soo qaatay kursi lagu soo fariisanayo adiga laga bartay madaxweyne adiga saaxiibka Fahad Yaasiin maxay taa qaran dumiska marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaa weydiiyo hal su'aal oo ah dalka qof Soomaaliyeed laga dhoofiyay muwaadin Soomaaliyeed Ethiopia gacan loo galiyay waxaana la leeyahay qaran dumis ayuu Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur yahay oo dawladda shisheeye ayuu lacag ka soo qaatay marka yaa noqon kara qaran dumis qofka dalkeena Soomaaliya qof muwaadin ku sugan qaaday ee geeyay dawlad cadownahay isku nahay geeyay u geeyay iyo qof dawlad muslim ah lacag ka soo qaatay yaa dambiir noqon kara xeeraryaha guud iyo taliyaha maxkamadda yey hataa hadii dacwad la qabo hadii wax la xukumayo yaa mudan in la xukumo ayaan weydiin lahaa marka arinta dab casr asad boojo waa soo wada saaxiibkay marka barnaamijkan waxaan ku soo gabagabeynayaa oo ku saabsan qalbi ninka la dhaho Cabdiraxmaan Shakuur waxa inoo cadaata marka 99 ka xildhibaan ee masaxiixay mooshinka ee dawladda Soomaaliya aan ka dhax arag danaha qaranka iyo dal jaceyl iyo dad jaceyl iyo diin jaceyl Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur inuu xanuun ku haayo ayuu weerarka xalay tusaaniga siyaasadda waxyaabaha qarsoon kamid ah
in ay qayb ka tahay mooshinka farmaajo qalqal weyn inuu ka haayo iyo xasan cali kheyre ayaa xalay ii caddaatay weerarka ani weerarka ma fiirso shakhsi soomaali oo la weeraray waxaan fiirshaa dhibaatada cabdiraxmaan cabdishakuur nin laga seexan waayey oo laga hurdi waayey inuu yahay ayaa halkaas iiga cad oo wallaahi ana cabdiraxmaan cabdishakuur ma garanayo shakhsiyadiisa dabcigiisa weligay lama hadlin weligay wax isma dhaafsan aqoon gaara uma lihi igu jufa maaha laakiin haddaan cadaalad ka tago ilaahay aakhiro wuu inaarayaa haddaan cadaalad qabiil dartiis uga tago ilaahay aakhiro abaalkeedu nuuc kale isiinaa qof walboo soomaaliyeed hargeysa ha joogo baydhabo ha joogo qof kastoo gardaro lagu xiro ani waa ka hadla anoo xaqa ku hadlaayo difaacaya ayaana godkayga galaya laakiin weliga ha iga sugin hebelaa qabiil ku taageera ani ha iga sugin hadduu in adeerkay yahay oo soomaali naceeb ku jiro anigu shakhsi soomaaliya ah beri waa isaameynaysaa taas aan ka gudubno kala fadhiga baarlamaankana February ayuu furmi doonaa nin la yiraahdo xeeralyaalaha qaranka Axmed Cali Nuur ayaa wuxuu iska leeyahay hebel iyo hebel daraha qarankay ku yihiin waa in laga qaado xasaanada ay ku leeyihiin baarlamaanka waa in la soo xiro iska leeyahay war aan waa yaabanahay war qofkan adiga ninka xeer ilaalyaha qaranka wuxuu xeer ilaaliye ka ahaa Ethiopia ayaana u soo wakiilata Soomaaliya isagana wuxuu ku leeyahay hebel dawladda soo wakiilata inaga miyaa hurudnaa mashalee maraasa ku jirnaa miyaan dad waawaalanahay aniga waxaan fahmi waayey dalka Soomaaliya ninka maanta Muqdisho ku dhashay Beedhabo ku dhashay Amboosaas ku dhashay ee gaalkacyo ku dhashay ku soo barbaaray xaqu u leeyahay dadka intuu hor imaadeen dhoo hebel dawlad kala soo dirsatay war adinta ka shaqeyn jirtay yaa u shaqeyn jirtay shaqadaada maxay ahayd maxaas dadka kale ku dhaliiloosaa ana hada soo leef Facebook live aan soo galaa bulshada saas ay u taqaanaa qofku ma dhaliili karo muxuu leef u soo galaa ilaa waa shaqadii isku shaqaanaabe isku xirfadaana waa inaashroona dist waxyaaba qaar waa ceeb taas cabdiraxmaan cabdishakuur ilaahay horta Soomaaliyay qof walba oo islaam ah waxa leeyahay qof kasta oo xaqdaro lagu xiraa haddii aad qabiil dartiis u mucaaradid ama uga soo horjeesatid ama aad ku taageertid ilaahay xaqaas hoostaada ka soo bixinaa marka waxa leeyahay muslimiinta Soomaalida walaalaheen qaaska u duceeya walaalkeen inuu ilaahay dhaawacaas ka bogsiyo si degdeg ah xoriyadiisana uu dib u hanto qodobka labaad oo aan rabo inaan ku dheeraadana ma jeceliye qodobka labaad waxaa Facebook maalmahan ku babadata dab casar iyo Somaliland iyo nimayo horto waxa la ninkii aan run sheegin beena u qarsan anigu dab casar waxaan ka aaminsanahay ceeb ma fikirkeyga waay dab casar waxaan ka aaminsanahay nin Soomaaliyeed oo qalbi nadiif ah laakiin wax yar maaragtay iska meeshii kulay nin konton jir ah laga rabay aanan joogin وعليها وجيني وقبائي وحس ما يعني كل كنت دأديس عقليس اسم لها لكن سومال له تجي أيجنا وابنبونيان عرضنا إمامي ما حكسوا دوني نكن محو حكمة هايا محو الدين هايا قفك بين آدك محو قصل هايا تذكر مك قصل السيام مايا مدينه نبرة مايا محو ما أنت دب عصر هذا وأجا هاي إنه مددالة بدن إيديا لكن أنا أهان دينك كما فائدين حكمتنا كما فائدين aqoon maadi iyo mid diini iyo wax aan ka faa'iido ma jirto sidaas darteed qof la sii daba kici kara ma aha qof siyaasi ma aha Somaliland shacabka Somaliland walaalahay waxaan leeyahay horta marka hore xarig iyo jirdil horta waa inaad ninkaas iska ma mudnayn nin la dilo nin la xiro nin si kale loo yeelo ma mudnayn waa iska masaakiin qalbi saafi ah isaga waxaan habiyo ku yahay iska fiirsada laakiin dil mu qalmo hadda asagoo xabs ku jiro isku soo caytamay ilaahay kuma waxa dhahay afkayga ma karee شعب سومالي ولا ليه سومالي وحنا ليه شعب سومالي لأنه أما هرجيس جوج أما بربرة جوج أما بورا مجوج دب عصر فري إسكت عافا دم بماله هدي ودم بالله هني هذين كاشرة إيرابور كلا كسر دويسين هوتيل جيسين تبص هوتيل دب عصر ولا عبد الملك عردون ذيكو وين سود دوية أما قفك وجه وناكسين كل دوية أما قفك حرو وحبها ونعملنا وحبها وقصل له لا بأس إن الله إن قارف سومالي لأن أنا إيه أسعبيان قارن أي حيران أنا إلى ما هبون قفك هاي ما هذا حلا حنا حبسها قرنه وسياسة دولة سوماليلاند وعيب معه لكن إنه وحيلي وفيعية إنه ولا حرا مركا نيكي أسادة كل درجة أديك كل درجة مركا عليه فري دب عصر أنو مركا عليه ولا الكي واي وحمان وقوة صاحبك أقوم قاصر إسكمني ووال سوماليات فري قبل كبنات دراسة هاي عيارتي ما أنت الور ريبي أو أنكسو جبينا أيو هرتو معلمين الصوماليات هل فرين هل ليجا جارسيو oo muhiim ah ama adinka la wadaaga saaxiibadiina oo sheer gareeya ama hadaa taqaanaan macallin oo
علشان قبل كبنادر وتو أما مد بدلان وتو أما مد أدو معمول قبل أم هيرسبيل هوتو أما جبلان هوتو هرتو مد هليج جارسية بعض إسبورتسكا ورانا قال لحدا سنة كبدنا كوبت عيارين ورانا وحنا دتك ugu badan ee Afrika ee kubadda daawado war sababta ani waxaan la yaabaa ee tahay markii Bruni qof qabsado kulli lagu soo ordo maxaa macallimiinta Soomaalida oo in badan Bruni ku xirnaa ee u garan laayihiin sababta ay san u sameyn karin qof kasta booskiisa ha joog ma waa in la sameeyo taas way ma fiirsan karna aniga TV ka daawanaa marka TV-ga hadii ciyaaryahan Bruni qabsado xirfadiisa ma soo bandhigi karo 10 qof iga aadamayso raacanayso qof waa inuu qof raacdo booska in la kala joogo dadka daawanayo ee banaanka jooga iyo kuwa gudaha waa inay kubadda ku raaxaystaan intaasna macallimiinta ayaan gaarsiin lahaa banaadirna waxaan leeyahay dhibaatada heystaa waxay tahay hal mid oo aan rabo inaan idin sharaxo sababta banaadir ay u harto weligeedna way har doontaa sababta idin sheegaa banaadir horta wax waayo gobolka kaliya ee kubad hadii la dhaho Soomaaliya maahane xataa East Africa laguma gaaro laakiin halka dhiba wuxuu yahay dadku waxay kala fahmayaan iyo isleeyin war meeshan elman iyo jeeye iyo adduun iyo dekadaha iyo waxa joogi jira maxaa gobolka banaadir looga badiyaa horta waxa ma ciyaari karaan kubadda gobolada haddii ciyaaryahanka gobolada ciyaaro uu Serie A iska diiwaan geliyo mar dambe ma ciyaarayo dadka xamar joogan waa wada Serie A marka sidee marka ay u ciyaaraan marka way ciyaalka kobaha noo heen jiray dadka ciyaaraha marka yaqaan ayaa ciyaar hadda sababtoo ah yabro wish ninka loo xaaj magaciisa saacada ma qaan hebelo way yabro wish ninka loo ay oo sports ka hadda gobolka banaadir haysta kooxda gobolka banaadir ayaan u sababtoo ah ciyaari hadda afarta fiicneed ama shanta ugu fiican gobolka banaadir ee hadda maamulada wala fiirna Serie A lagiya sanadka dambe ku ciyaarayaan xeerkana diiday ninka Serie A ciyaaro inaan mar dambe u ciyaarin Puntland la ciyaaryahan Puntland ah ama ciyaaryahan Jubbaland ah ma dheela Serie A muqdisho ku xigta ila Serie A waxay leeyihiin lacag aan ku seen maxaa ka doonaysiya maamulada koobka maamulada u ciyaarta Brit banaadir marka kubadda way taqaanay kala fahma sababta u harto waa taas ciyaalka anaga kobaha noo heen jira la soo wadaa ani idhalsiino laba bari calmiteen aan ka dhaxbaxa wallah marka banaadir qabiilka sadego meel walba Soomaaliyeedna ay u tahay center qof khaas u lana ma jirto waana taageersanahay intaasana barnaamijka caawa ku soo gabagabeynayna in ka badan 3,000 qof oo live inoo aheedna waxaan leeyahay mar walba xaq ku taagnaada Cabdiraxmaan Cabdishakuur free sawirkiisa la soo saarta kaligiisna ma ahanay qof walba ama mareexan ha noqdo ama murusada ha noqdo ama abgaar ha noqdo ama mareex xawaad ha noqdo ama dhulbaanta ha noqdo qof kasto xaq dara lagu xiro ka dhiidhiya bari kuuma imaanayo dadkaas waa iska xijaabti laakiin hadaa tira aniga hebel reer hebel la ra'iisul wasaaraha igu ciday madaxweynaha igu ciday reer hebel ka soo horjeeda waxa ka baxo waxaana ogaatiin ogeysiisku u dambeeyo 6 qofood ee dhimata xalan ay ilaabinina bye bye